ku kalsoonaa noloshaada. Waxa aad soo martay ama hadda waxa ku nooshahay waa inaad wax rumaysataa. Wax kasto aad ugu yeerto qadar, karma ama wixii dhici karo ama wax kale, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso wado ayaa ku sugayso. Dhageyso ee qalbigaaga aamin, wuxuu ku siin doonaa jihada aad qaadan lahayd. Waqtiga dhulkan wuu kooban yahay, xaasidnimo iyo nolol ha ku kharibin iyadoo loo marayo qofka noloshiisa. Ha ogolaanin kuwa kale inay ku sheegaan wax la sameeyo ama laga fikiro. Hana aqbalin xukunka dadka kale, shaki iyo cabsi kugu abuura. Waa inaad heshaa wax ku dhaqaajinayo. Waxa ku tamargeliya wax walbo qaybaha noloshaada. Shaqo, jacayl, saaxiibtinimo, wax walbo ha ahaatee. Ka dhig noloshaada mid macno ku leh iyo weliba dadka kugu xidhan. Haddii aysan ahayn raadi taas, oo ha joojin ilaa aad ka hesho waxa runtii adiga ku qoseeyo. Ku dhiirnaada inaad raacdo dareenka qalbigaaga. Waxay hore u yaqaaneen hal wado ama si kale waxaad runtii rabto inaad noqoto. Xataa haddii aad la kulanto dhibaatooyin, ha isdhiibin sida dadka badankiisu ay yeeli doonaan. Iqaabadaha jidkayna hor istaagaan waxay u joogaan inayna xoojiyaan oo su'aal aan isweydiino, horumarno oo ugu dambeyntii koraan. Waxaad u baahan tahay geesinimo si aad wax u qabato. Waxaan guud ahaan ka baqaynaa khaladaado in lanagu xukumo dadka kale, ama si fudud ma awoodo si aan u xaqiijino riyooyinkayna ama hadafyadaada. haddana cabsidu ma aha wakiil maskaxeed. In ay tahay inaad ogaato sida loo dhageysto adigoo wax yar muhiimadda siiya leh. Kuwa sidaas sameeyo maalin kasto sameyn bay leeyihiin. Ha u dib dhiganin beri ama sitimaanka soo socdo ama marka la garanayo wax kasto aad rabto inaad qabato. Waxaad rabtaa markaas sameey iyaga. Waxaa laga yaabaa inaysan fududeen. Isbedel kasto wuxuu la kulmaa adagti. Laakiin waxaad leedahay awood gudahaaga inaad samayso wax qalbigaaga ku faraayo. Ha dhageysin dhammaan codadka yaryar ee gudaha ku jiro isla markaas ku sheegayo inaadan awoodin. Aqbal meesha maanta joogto oo qaado dariiqa ku furan. Ku noolaaw maalin kasto sidii ay ahayd ugu dambeyntii. Ku noolaaw noloshaada samir, jacayl iyo mahadnaq. Taariikhdu tani waa la akhriyaa, laakiin sidoo kale waa wax la qoraayay. Wax walba dhac noloshaada hore waxay ka dhigtaa waxa maanta aad tahay. Laakiin ma ka dhigto beri waxaad noqonaysid. Laakiin waxaad hadda qusayso waa waxa aad sameyn doonto. Isku kalsoonaa.